هذا Somaliland قشيد أنا تاجي نقني هذا لكن adigaba qarannimada Soomaaliya aad kala dhantaashay waliba ogow hadii aad mujid haddaad cid necab tahayna cidda aad necabtay waxay aaminsan yihiin fikirkooda lagamana hadlo ee waa laga fogaadaa soo dacwan ku haystaa ummadii aniga isku keendirtaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام تبغى عنه ونسيد هانتي ببلشة ذات كلا جبرة ولكن على برعوي قلبي بلشة دي ذات كيجي مضي دي سود هذا هرتا أد بنقول فرح سنة هيران هيستدد أد وقلب ولكن هرتا ما مين جود بيجي مقالة ببر كيك كب حدين مقال كنا نقابل عبد الله أد بنا ديجا عباني وحنا ديجا عباني حاجة لايكته يعني ديجا عباني فاتي ودي بهذا اللي بهذا ست هرتا أنت مرة بقرب كيك تاجنا ومهد علني أنت لو ده مرة كده عنا راح أقول له يلاوينه هذا حتى مشغولشان مركز حسوستان مقالة aragtaa dad shaqo ku mashquulshay dad hurdayga mashquulshay marka soo toostay boqolka aragto kulay daawatay like tan dhacdo ku sii doonta marka anigu waxaan aaminsanahay inaan dadka kale aan dheerahay dad qalbi wanaagsan oo markaan hadlo sida ay qaada marka muuqaalkan igu dareensiya qalbi to qalbi khayrin iska fiicda ku rafan maayo laba muuqaal badan oo bartan inay duglo wadaaga madax weeye ilka casay qays iyo nicmo joker halka ay dhig muuqaalkan la xawiyay laba dhalinyaro waa laba dhalinyaro oo hawiye ah labaduba ayruush iyo wax la kala yaada bilaal bulshaawi bal hadaba dood yar baa dhex martay fikirna ma ka dhiiban doona doodda wada dhageysan doonta fikirna wad ka dhiiban doonta muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaalka iigu dheer ee aad u dhageysan doono muhiimadda moor aad wax dhageysato oo moor aad wax fahmi karto oo moor aad waxa aad fahantayna aad ka jawaabi karto aad ila dhageysta kadibna jawaabtiina commentiga هاي سحرة معناها كوميتيو هكبطو مقالة هوري كوميتيودودي سيدة الله هذا Somaliland قشيد أنا تاجي نقني هذا لكن adigaba qarannimada Soomaaliya aad kala dhantaashay waliba ogow hadii aad mujid timaadid erayada aad dhehaysid ee Somaliland waa wadan ogow inaad lagu maxkamadeyn karo hadaadan obolajees ka bixin marka Muqdisho imaanaysid soo okay هذا الكلام dastuurka Soomaaliya ama sharciyada Soomaaliya waa maamul goboleed Somaliland runtii waxaan aad uga qoomameeyaa ama aad aan uga soo horjeeda aniga ka bilal ahaan in la buunbuuriyo arrimaha ama barnaamijka ku saabsan 18 May horta laba qodob ka hadlay in Soomaalinimada la kala qaybiyo waa Soomaalinimo laba waa ka soo horjeedaa 18 May in la buunbuuniyo waa laba qodob labaad waa laba qodob waanu ka baxay bal jawaabteena eegno waxaan u maleynaa daqiiqado hore iga khasaare meeshaas inaad joogto ama fikirkaas inuu kugu jiro horta uma aana malaynin marka horena waxaan ku dhahay Somaliland haddii aad geshid aniga aad taagnaga marka koowaad aruush baan ka radaa madaxa qacda maqsha qac ويسجل فارس 1 وحول بالك وده دقيقة كي قصاري واحد دقيقة كده جيسني معناها ما بين مودين إن هرجع كحل سوى مودين قاعد بضو خاصة معناها هي حد كجد وانت بالواي سيدا إنك تجي أنت هذا شو كل هذا اللي ما وحي قالوا كلها هذا الكعكوب باللاودي عروشو إن Somaliland تاجرت هذا Somali إماتد حركة كم تصدر تعو أنت هذا اللي زقوا أمسنا ما يقول جيسنا يا أنا وأقول جيسنا حتى مكودين just أي أمسنا مايا أنا هذا اللي ربنا يتروى هذا اللي ربطه معناها هذا النوع سكاسو هذا اللي ربطه كمان just يدقيس هذا وأقول جيسنا هذا كأقول هذا الكعكوب باللاودي إن Somaliland تاجرته وحدكم تصدر هذا Somali إمات حركة وحيرا كوش هذا أنا ودنك أكون على وحالة على كونفور أفريقيا أما صوت أفريقيا سأتقاني عدان مدحوينك معها مدو مدحوينك لك عدانا ودنك كتاليو دستورك إيجا قرو نظامك إيجا قرو عيوق دلك إيدتك ودن كان عدانا هوسك معمولو Somali عدي ربطو مدحوينها كنقطو عدي ربطو مدحوينها كنقطو لك أنا Somali كر إيهوسا كمعمولنا ميل الله لميشان ربو عيد Somali إنتان تغو فكر الله لا فكر كارب أنو آمسن أسحر ونورانا أيضا عدني إيسي إلى ذكري لا أنا قبيل كما هذا قبيل ما شيء لكن ده كثير وأنا أوزر كرام Somali ماشي عني كتب أنا حرقة وجيس كارو أمريكا أو عدني في كيرين حتى أكون ورانا أيضا ولي بنسول دوينا Somaliland سيدي تون كمي ومعلن أن دون لا ترتمن أو علن أن تاجنا إلهن إما إيصادهن معلن أن لا ترتمنه
kuwa caloosha ka buko iyo kuwa uqdada heesa aan la tartamayna ma aysan dhihin 18 May waa maalin iyaga u gaar ah waxaa kaliya kugu filan haddaad adiga 18 May aaminsaneen ama jiritaanka Somaliland aad aaminsaneen inaa isaga aamusto ka sii socoto hortaagaasi waa qaac waa midda koowaadee dadku waxay badanaa isku qaldaan wax la jinsiyadda iyo wax la wadaniyadda waxa weeye inaad ama reer Soomaaliya tahay ama reer Somaliland tahay ama reer Jigjiga tahay ama reer Djibouti tahay sida dawladda haddii maamul goboleed yahaan saaran loo soo wada qaadanayona waa halkeeda oo qofku maamul goboleed ahaan uu aaminsan meeshiisa ama maamul goboleed uu aaminsano ama dawladdu uu aaminsano waa taas waa kow waa qodobka labaad ee qofka haddii uu xidho calanka Soomaaliya huwado calanka Soomaaliya macnaheedu maaha inuu necab yahay reer Somaliland inuu calanka buluuga uu qaatay keligii uu yahay Soomaali astaanta calanka buluugiina maaha astaanta jinsiyadda Soomaalida iyo jinsiyadna maaha Soomaalinimana maaha astaantoodina maaha astaan iyo waxay kala yihiin astaan qaran oo dad Soomaaliyeed aaminsan yihiin calankaas iyo dawladnimadiisa iyo maamulkiisa iyo meel kasta ka babanayo qofka calanka Somaliland wadaana maaha inuu necab yahay reer Soomaaliya qofka calanka Somaliland wadaana macnaheeda maaha inuu yahay Soomaali sax ah oo isagu saxsan oo keligii Soomaaliya wuxuu aaminsan yahay inuu calankaas yahay dawlad qaran fikrahaana aaminsan yahay meel kasta calanka Somaliland ka babanayana ay tahay dhul Soomaaliyeed laakiin qaran uu yahay ama dawlad ay maamusho hota waata waa midda koowaad ee dhalinyaradu waxay badanaa isku qaldaan dhalinyaradeenna dambe Soomaalinimada jinsiyadii iyo wixii fikrahaan lagu kala duwanaa Soomaalinimada fikir ma gasho jinsiyadu fikir ma gasho Soomaali baa tahay Soomaali baan ahay qof inaad uga tagto waxa adigu aad tahay qof ugama tagi kartid Somaliland waad uga tagi kartaa qof Soomaalinimo qof ugama tagi kartid laakiin Soomaaliya ama kale dawladda leeyahay oo uga tagi kartaa waxa weeye calanka buluuga cid waad uga tagi kartaa waayo calanka Soomaaliya oo la bedeli karaa oo wax la bedeli karo laakiin jinsiyadu ma wax la bedeli karo calanka Somaliland oo wax la bedeli karo laakiin Somaliland danimada ama dadka Soomaalida ku dhaqanay waxay bedeli karaan ma faad Somaliland saddex calan baa laga soo taagay kiisana baa laga soo taagay oo calan gaaraba iyagu ba wateen calanka labaad ee laga soo taagay isagana wuxuu ahaa saddex calan baa laga soo taagay calankii Soomaaliya laga soo taagay kow kii isna waa ka taagnaa oo kii Soomaaliya kii isna baa laga taagay kii isna waa laga dajiyay ka Somaliland badan laga taagay maana macquul noqon karin imida afraad wadana ka taagan waa macquul marka wax isbedeli kara taasna waxaan leeyahay dhalinyarada hadda joogta 30 ilaa 20 da'deeda dhalinyarada ah inta u dhaxaysa 30 ilaa 20 inta u dhaxaysa 21 ilaa 30 inta u dhaxaysa Soomaali way kala tagtay dhalinyarada maadaama Soomaali kala tagtayna haddii aad tiraahdo anna xaggaasana catuugiya sida Bilaal Bulshaawi oo aad isku qalado dawladnimadii iyo jinsiyadii oo aad tiraahdo qofka calanka Somaliland sita Soomaalinimadii ka hormaraya oo Soomaali ma aaminto this rock dhalinyaro badan waxa aaminsan way jiraan dhalinyaro reer Somaliland dad xaggaadna ka cantuugto oo cid kasto calanka buluuga sita aad tiraahdo macnaha Somaliland buu necab yahay tiraahdo this rock iyaduna waa qalad marka waxa weeye fikirka waa lagu kala duwanaan karaa waxa suuragal ah in la fikiro oo la war maxaad aaminsantay waxaan aaminsanahay sida mid baan ka soo degay adna mid baan ka soo degi kartaa la isku soo yara dhawaado la isku baashiro hal calan baa la wada qaadan karaa ka buluuga la wada qaadan karaa ka Somaliland baa la wada qaadan karaa wax laga yaabaa in caasimada Hargeysa laga dhigo not problem wax dhiba maaha jinsiyada lama bedeli karo laakiin iyo diintaba labada mid lama bedeli karo carabku waa carab baan leeyahay diintiisa waa islaamte Soomaaligu waa Soomaali jinsiyadiisu carab ma noqon karo Faransiisi iyo Ethiopian ma noqon karo laakiin diintiisa waa islaam marka jinsiyaduna isma bedesho diintiisa isma bedesho you understand oo faade baflea intaas ka baxayda adna wixii fikirkaaga waad nala wadaagi doontaa committee nagula wadaagi doontaa haddaad cid necab tahayna cid aad necabtay waxay aaminsan yihiin fikirkooda laga hadlo ee waa laga fogaadaa you understand haddaad reer Somaliland fikirkooda iyo jiritaankooda iyo waxay aaminsan yihiin la aaminsaneen hana caayin hana aflagaadeen ay iskaga fogow haddaad reer Somaliland tahay oo Soomaaliya fikirkooda iyo aragtidooda aanad aaminsaneen ha cayno ha aflagaadeen ay iskaga fogow saasna waa iga talo aad baa u mahadsantiin muuqaalkan ee doonaya labaad ee ilka Xasan Qays iyo Nicmo Joker baa daawada soo dacwan ku haysta habe ummadii aniga isku kendirta go jambala igu turta dadka labo markasta TikTok ay soo gashin commentiyada dadku waxay ugu soo qorayaan taageerayaashaada special dacwanka ah waxay idhahayaan had gabadha Arab Joker Qays maxaa ku dhacay bay tiri uuba dhamaadee baa kulaha heedhe
inanka baano oo hana ceebeynin aniga marka ay guursatay caataa ahayd iskaabloy horta xamila iska dulqaata 2004 iska soo fadhiyo iskaabloa dhageysta qaacda barta ka yeedha dhaayada ku jirta صح marka is guursana waa cayish zaid waa cayish صح hadda maalmo dhexaas waa iga dacwooto waxaa tiri aniga zaid ay cayilinaysa cimri degdeg ay uruudaysa صح dhaayada gashay ها an ma ku gelin sada galay انا قال la hadal dadku u sheeg ورت ادي اد بان سلامنا شنت الصومالي مالو با جوجتان بقول فريتمان قران عدي سنه كسلانay taageeraha Naciima Diamond ayagana waa salaamay taageeray ayagana waa salaamaya dietkan ana galay maxay yeelay inaan nolosheeda iyo caafimaadkayga iyo wixii inaan wax ka bedelo ayaan ugu talagalay okay maxaan suubiye marka maxaa tahay marka maxaan suubiye inay sheegaya horta hilib dhan baan joojiyay hada marka cuntii kanas maxay karaysaa mar walba qudaar haye waxa isaysaa qudaar iyo faad dhan waxa avocado ka cunaa bas hilib hadaan siinaysan maxaa chicken biyo lagu qooyay kaliya ama kana biyo lagu qooyay iyo fish ha kalluun that's it intaas bisaan cunaa hilib arigi aan soo gadanay bacbac intuu qaado qashin ku tuura yes horta nimcada ilaahay baa bixiya dadka qaarna dee diet baa ku jiraan oo cuntadii bay iyagoo heli karaya iska yareynayaan si caafimaadkoodu u badbaado dadka qaarna way laayba intaan haysanto Allah ha siiyo inta haysataana inay silaawaan ma sida aniga oo kale waan silaaw waxa noogu wacan waxa weeye xaasnimada weey marka anigana imka yadan u sheegayaa maalin walba oo 7 cisho markaan diet ka wado 7 cisho markaan wado maanta sidee waxa la arkaa oo baafalay soo dhigo iska raqaya saliidii ma sonkor 7 cisho dagaal ku jira maya ka ilaali saliida milixdayga ilaali tayga daaya taa in yar baa ka cunaya daaya waa silaaliya miisaankayga soo yiri 4 5 3 waa silaawa 7 cisho kadib laakiin kismay laaway wayna waxaan ku yiri dayaxdan nushay ninkaaba dhangadhaan aan soo gaaray aad buu dhuweeyeen waa si fiican laakiin iska guursada waxay ilaaliya Allah ha idin siiyo aad baa u mahadsantiin muuqaalka noo la garay noo share garay asxaabtina la wadaaga bye bye